waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa gabadhatan malikatu saba markii uu timi warqadii nebi sulaymaan innahu min sulaymaan innahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calay waatunii muslimiin waraaqday ku qoray ha kibrina idinkoo muslima ii kaalaya gabadha tani waxay ka fakartay bal siday ula dhaqmi lahayd dabeetana waxay la tashatay dadkii talaqabeenka iyada u ahaa qoladii talaqabeenka u ahayd waxay idhaahdeen waanu xoog weynay cid walbana waanu iska celin karnaa arrintana adaanu kuu daynay go-aanka gaadh islaan caqli badan bay ahayd oo go-aan bay gaadhay ah bal inay itixaanto sulaymaan inuu nin wax islaaxinaya yahay iyo nin adduunyo doona inuu yahay adduunyo doonku bay tidhi ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha dillah wakadalika yafcaluun marka waxaan tasgaraynaa bay le waxaan itixaamaynaa bal mowqifku hunguriga ka taagan yihi waxay tidhi adduun baynu u diraynaa inii mursilatun bihadiya fanaadiratun bima yarjicu lmursaluun bay tihi hadiyad baan u dirayaa xoolo waxaan eegayaa bal xoolaha wuxuu kaga soo jawaabo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay falamaa jaءa sulaymaanu qaal atumidunanii bimaal fama aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun xoolihii markii loo keenay nebi sulaymaan wuxuu yidhi ma xoolo ay i keenteen oo hadiyaddiinnan iyo waxan baa la timaadeen waxaa laysiiyey baa ka fadli badan waxa kan idinkuna waxoogaagan adduunka iyo hadiyaddaa ku faraxsantiin waxay tilmaamaysaa inaanu mansabka xoole ku doonaynin iminka waxaa laga yaabaa inaad aragto siyaasiyiinta mansabka doonaysoo dhami waxa uu raadcaynayaa inay tahay tse business suu lacag uga samayn lahaa ama reerkoodu siduu reeraha kale u boobi lahaa ama sidii uu wax loo qaadi lahaa wuxuu waa business afgobaadsigaa la yidhahdaa ummadda horumarkeedaanu doonaynaa iyo midnimadeeda iyo kani waa sheeko waa business uu doonayo inuu waxna boobo waxna dhaco waxna helo lacagna uu qaato amaa tan qur-aanku uu ka warramay waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin adduun waxay madaxnimada u hayeenna inaanay adduun ku qaadanaynin waxaa qisada nebi sulaymaan ka mid ah oo rabbi subxaanah wa tacaala uu ka warramaya nebi sulaymaan oo u baahday carshigii balqiis in la soo qaado dabeetana koox hortiisa joogta ay ishayso cifriit min aljin uu leeyahay intaanad meesha ka kicin saacadka shaqada inta aad ku jirto baan keenayaa carshiga rabbi subxaanahu wa tacaala cifriidkaa jinka ah mid ka xoog badan baa laga warramay kaasi wuxuu leeyahay working hourska saacadaha shaqada gudahooda intaad shaqada ku jirto ee aanad ka kicin xafiiskaaga baan keenayaa laakiin ilaahay wuxuu idhi waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kii cilmiga kitaabka la siiyey ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbidhiqsi in leeg kow kan lama sheegin ma jinba ma insiba ma malagba waa noocma waxaa lagu tilmaamay sifo sheegisteedu ay ku filantahay isaga sheegistiisa waxaa lagu sifeeyey inuu yahay alladii cindahu cilmun min alkitaab aqoon-yahan baa lagu tilmaamay waa aqoon-yahan kitaabka yaqaanay baa wuxuu yidhi aqoon-yahankani inuu malag iyo inuu jin yahay iyo inuu cid kale yahay ilaahay kama warramin laakiin waxaa laynoo sifeeyey inuu aqoon ahayd waxaanu wax ku keenayay aqoontan wakhtigaa taagnayd ee nebi sulaymaan iyo ciidamadiisana la siiyey waa aqoon aan maanta dunida oolin waayo sariir boqortooyo in saba oo yaman ku taalla laga qaado oo la geeyo falastiin oo nebi sulaymaan deganaa oo lagu geeyo elbiriqsi aqoonta bini aadamka iminka wuxuunbay awooddaa only mala haddii loo diri lahaa asa signal waladiinii kombyuutarradii iyo telefoonnadii waxaan ka warrami jirtay yacni asa signal haddii inta carshiga la dhalaaliyo signal laga dhigo oo la sandgareeyo dabeetana within milliseconds dhanka kale receiverku uu qabto dabeetana dib loo amaamudo la shaaciyo that's the only technology maanta mala suurtagal ahaan lahaa in ay samayn karto
لكن ربي وحط المامية سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وحان كينيا إذا ماشى وحلت المامي وقت يكون كينيا هي علمه نوها وقيل لنا مشيئين لكن وحا لنا مشيئين وحا كدن بيانو يهي محي أقون صدى النبي سليمان وحا كلو كم موقته هذين نري أقون تقنية نوي كم موقته فرسمو تكنولوجي وهي قبل مركز سو إسلامتي نبي سليمان وحو يكو حديثي وحي أمرين للسمايو صرح ممرد من قوارير بسمة للسمايي قرارات بالصاري وحي علون إنه بيا هوست اللي مريي قابل دلالة تاني أصمي السنيد أنا دل النمدة دا أركينين بيوه قد يكون موقنايا دبتنا قفك دول مريا قفك مركو ما يصاب بلابو حسنين بياد مريسا يدي كفيدو اللي بيو أركاي دلالة هو ترانسبارنت عن موقنين marka biyaha markuu sidaahda dhaxmar qofku uu faydanaya boqoradii waxa la yiri qila la hadkhul as-sarh na halkan marba lagu yiri falamma ra'atu hasibatu lujja wa kashafat an saqayha baylahi markii ay meesha soo martay waxay u malaysay meel qodan oo debiya ku jiraan dabatana dhudhumaday faydatay qala innahu sarhun mumarrad min qawarir waxa lagu yiri waa dhismo mumarrad ah ممرضك يعني وحويا أمرض لقدقي سسبعة very smooth corrugation aan lahayn qoladii farsamadu bahashii ay saari jireen marka la saaro wax hawi waa dhismaanu ka muuqanayn siman oo min qawaariira ka samaysan baa leeyahay quraarada ka samaysan idan waa technology muujinaya biyihii inaad garan karin meeshu inay biyaha rasmiya yihiin iyo inay dhalatahay aad garan karaynin quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi daawuud kow aayaad waa kayn xagga hore ku soo marray in cilmi la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilma taqniyada marka laga warramayo quraanku wuxuu ka warramaya maxay wa alannaa lahu alxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa إني بما تعملون بصير وألنا له الحديد وحن أجل عنيبا إلى هيد حديدك آيرانك دبتنا وحلقوا إلى أن اعمل سابقات وقدر في السرد واحد سميسا دروع سابقات قلب كان لقود قال قاله سيفت إياه وحكين علين إياه وقدر في السرد حلقة يدنا واحد هذا النبي داود فرسمدي وجوه الرئيس بقري وهو حلقاتين شري بر اسكت حن لكن برتا إن لقدقه حلقات يرير سيركلس يرول يسصرصره أو سلسلة يرير لقدقه سلسلة عن ورن كيا سيف تطور جالي كريم لكن شركة ودنا لوجو قارن كره سلسلة دينا النقطة وحي سماينيسا flexibility شركة وحيلا يا إنه اللي هو سلسلة ده وكلا دقاق سينو دقاقه وقفك الدجال كيسفي عنه وجالي كره وحي كلا سماينيسا إن أنا شو جالينا محي بحالكي waxay kala sameynaysaa inay fududaato oo birtoo dhamay haday malaasnaan lahayd dameelahan daldaloodha wasni baa hadhay miisaankii badh baa lumaya idan waa technology cusub oo technology markaa yaalay ka gadisan oo haday tahay fudayd haday tahay cost ko ka yaraanaya kii hore qiimaha yaraanaya haday tahay flexibility geeda iyo sidoo qofku u dhaqdhaqaaqi karayo tiro badanaysa farsamo cusub buu sameeyay sideedabana adduunkana maanta aragtaan wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo technology-gan cusub ee arkaysaan dhammaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo birta in la tumi karo aanay jabinna 19th century-gii bay dunidu bilowday production-keedan tirada badan leh birta in la adkayn karo ama steel laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasay iyo noociyadkeeda industry-ga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo qaybii ugu horeeyay ee taariikhda science-ka taariikhdiisa hadda dib ugu noqoto ingiriiska markii ugu horeysay birahan yar uu sameynayay Swedishku ka soo qaateen tijaabo yar oo aad u liidatay ahaayeen
لكن تجابي كاسي وقت يجوش قارن با إندستري ويني بلابنا وهي إندستري قدامانتي هداي هبطي هداي وحكلاتي everything بربو كحرين برتين لا تعامل كراه وحي شيء يساينا هاي تكنولوجي أسهل كوكا انطلاقه إلهي سبحانه وتعالى نبي سليمان وحط الماما يا والنا له نبي داود والنا له الحديد نبي سليمان إلهي وحلي وأسلنا له عين القطر وحنور على النيبال إلى عين القطر نحاست ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بل القرآن كوحة المامية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلهي وحي إسراعي رسول الله صوت دري كتاب كي ميزان كي عدالة الله صوت دري هي حديد كين إلهي سود تشيبه إلهي السراعي لا تلمام يعني نلاش الله بدطن أي كوس الله يسمتي إذا وحنا لنا مركز نوفر سنة قصة النبي داود هي النبي سليمان وحقاد وقد موضة مسألة العلم والتغنية